بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkeenii buluuq اlmaraam baabu اlmasxi calى اlkhufayn. waxaan qaadanaynaa oo aan gelaynaa baab looga hadli doono masaxa iyo masaxitaanka khufaynka dushiisa la masaxo. almasx cala alkhufayn. khufaynku waa kabaha la qaato ee buudka oo kale ah. waa wax allaala wixii marka inta lugta la geliya ilaa anqowga markaa qariya. sidaa darteed buu axkaam leeyahay oo qofka musaafirka ah ee socotada ahna wakhti baa loogu talagalay, ka muqiimka ah ee gurigiisa joogana xilli baa loogu talagalay. waxa kale oo jirta shuruudooyin marka lagu masaxo. can ilmugiirati bni shucba radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa maca annebiy, nebiga micigiisa ayaan ahaa sala allahu calayhi wasalam. fatawada'a waa weyse qaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam. faahwaytu anigana waxaan u hoobtay buu yidhi lianzica inaan ka siibo khufaynkiisa inaan ka bixiyo labadiisa kabood ee buudka ah inaan markaa ka bixiyo. faqaala wuxuu ii yidhi dachumaa ka tag, dhaaf ayuu yidhi. fa innii anigu adkhaltuhumaa waan geliyey daahiratayn ayagoo daahir ah ayaan gashtay. famasaxa calayhimaa dushooda ayuu markaa nebigu masaxay. muttafaqun calayh. mugiir ibnu shucba nebiguu safar la ahaa. nebigaa qadaa'ulxaajo gutay. mar allaala markuu ka soo noqday ayuu biyaha weyseqaadka ugu shushubaayey. xibnihii oo dhan markuu soo dhaqay oo lugaha u dhiman yihiin, mugiira wuxuu u hoobtay inuu kabaha ka bixiyo nebiga sala allahu calayh wasalam, oo si inta kabaha looga bixiyo kadibna uu lugaha u dhaqo. kuntu waxaan ahaa buu yidhi maca annebiy, nebiga la jirkiisii micigiisa sala allahu calayhi wasalam. fatawada'a nebigu waa weyse qaatay. faahwaytu lianzica khufayh markii lugaha uu soo gaaray ayaan hoobtay anigana oo waxaan aaday inaan kobaha ka bixiyo rasuulka sala allahu calayh wasalam ee khufaynka ah. faqaala dachumaa daabuu ii yidhi ha bixinin, sidooda u dhaaf. fa innii adkhaltuhumaa markii aan geshanayay kabahan khufaynka ah daahir baan ahaayo luguhu daahir bay markaa ahaayeen. fa innii adkhaltuhumaa waan geliyey daahiratayn. famasaxa calayhima dushooda ayuu markaa nebigu masaxay. muttafaqun calayh. walilarbacati arbacadii waxaa u sugnaa canhu xaggiisa ila annasaa'i, nisaa'i maahane, ilaa saddexda kale macnaha afartii oo aan nisaa'i ku jirin. anna annabiya sala allahu calayhi wasalam masaxa wuxuu masaxay acla alkhufi khufka meeshiisa kore iyo wa asfalahu hoostiisaba. wa fii isnaadihi dacfun sanadkiisana dacfi baa ku jira. waayo axaadiista saxiixa ah sida nebiga ka sugnaatay, siduu asagu amray, kulli waxaa la masaxayaa xagga kore. waxaa la masaxayaa meesha kore, hoos markaa ma jirto.
laakiin wuxuu ku tilmaamay xadiisku daciif ana الnabiya salى اllahu calayh wasalam masaxa aclى اlkhufi qofka meeshiisa kore iyo wa asfalahu meeshiisa hoose ayuu nebigu masaxay. wa fii isnaadihi dacfun baa ku sugan, xataa xadiidka soo socdana wuxuu tilmaamayaa inuu arrintaa ka hor imaanayo. wa can caliy radia allahu canhu qaala cali wuxuu yidhi low kaana diinku hadduu ahaan lahaa bira'yi maskax, ra'yi iyo caqli hadduu ahaan lahaa, lakaana asfalu lkhufi qofka meeshiisa hoosaa ahaan lahayd awlaa mid kaga awliyeysanoo kaga habboon bilmasxi masixitaanka min aclaahu meesha sare. hoos ayaa fiicnaan lahayd oo owla ah haddii diinku ra'yi ahaan lahaa, laakiin diinku ra'yi ma ahee waa itibaac iyo waa wuxuu ilaahay sharciyeeyey, waa wuxuu rasuulku ummadda soo gaarsiiyey. waqad ra'aytu rasuula allahi rasuulkii allaan arkay sala allahu calayh wasalam yamsaxu asagoo masaxaya calaa daahiri khufayhi khufaynka daahirkoodii meeshooda kore. akhrajahu abu daawud baa xadiiska wariyey biisnaadin xasani, sanad xasana ayuu markaa ku wariyo. xadiidku waxa uu tilmaamayaa, balse saxiix ahaanna waaba la gaarsiiyaaye, wuxuu tilmaamayaa diinku inuusan ra'yi ahayn. maskaxdayda saanay ahayd iyo saan ma fiicna, kan haddii saa la yeeli lahaa saasay ahaan lahayd. dadaa diinka iyo sharciga maskaxdooda u bandhiga, haddii maskaxdoodii ra'yigoodii caqligooda uu qaadan waayena naskaasoo dhan markaa ka taga. xaqiiqda marka la fiiriyo wasaqda meesha lagula socdo waa meesha hoose, in la tirtiro oo la masaxo hoos baa habboon oo awla ah. waa maskaxdeenna marka la fiiriyo, waa maskaxdeenna gaaban marka la fiiriyo. amaa xikmad ka xeel sarraysaa jirtaa. ilaahay subxaana wa tacaala asagaa wax allaala wuxuu doono xugmiya, xakiimna ah, xikmaddana wax ku salleeya. saa darteed bani aadamka caqligooda haddaan diin lagu hagin dhibaato ayuu ummadda gaarsiiyaa. waayo dadka waatuu ilaahay tilmaamay, dadka dhammaan haddii ay raaci lahaayeen ama dadku ay raaci lahaayeen akar man fi lardi, dadka waa dhumi lahaayeenba. waayo ummadda badankooda waxay isku raacaan waxaan sharcigiiyo diinka markaa waafaqsanayn. low kaana addiinu bira'yi, diinku hadduu ra'yi ahaan lahaa, lakaana asfalu lkhufi qofka hoostiisii meesha hoosaa awlaa ka habboonaasho badnayd, owla ka ahayd bilmasxi masaxitaanka haddii la yidhaahdo min aclaahu meesha kore. ileen wasaqda hoosaa lagula socdaa oo dhulka marka la soconaayo waxa lagu socdaa waa meesha hoose. laakiin waqad ra'aytu waan arkay rasuula allahi rasuulkii alle oo yamsaxu calaa daahiri khufayhi khufaynkiisa daahirkooda markaa masaxhaya. idan diinku ra'yi ma ahee waa itibaaci wuxuu nebigu keeno. maskaxdiina hadiida ama ha yeeshee qaata wax allaala wixii sharcadu ay tilmaanto. akhrajahu abu daawud baa xadiiska soo saaray biisnaadin xasanin. wa can safwaan bin casaalin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam ya'murunaa midna fara idaa kunnaa marka aan nahay safar haddaan nahay anlaa nansica inaanan bixin oo aan siibin khifaafanaa khufafyaalkeena 3 ayaamin 3 maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda 3 maalmood iyo habeenadooda inaanan qofka iska siibin oo kabaha qofka ay noogu jiraan oon dusha ka masaxno ayaa nala amri jiray. haddii aan nahay musaafiriin waaye ilaa min janaabatin janaaba ma ahani, laakiin hadday janaabo ku asiibto kor la masaxi maaye waa la bixinayaa, waa la siibayaa, waa qubaysanayaa, waa weysaysanayaa, waa gashanayaa, markaasuu haddana masaxaya. ilaa min janaabatin janaaba xaggeeda ma ahani, walaakiin min gaa'itin saxaro wa bawlin iyo kaadi iyo wa nawmin hurdaba intaba umana siibi jirin oo inaanan u siibin. akhrajahu annasaa'i ayaa xadiidka wariyo soo saariyey watirmidiy lafdigana lahu tirmidi baa iska leh. wabnu khusayma wasaxaxaa way saxiixiyeen. macnaha tirmidi ibnu khusaymada labaduba xadiisku saxiix waaye ayay markaa yidhaahdeen. oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa xadiis dheer qayb ka mid ah
khaasatan qaybka dadka musaafiriinta xukun ahaan ay u qaadanayaan masixitaanka khufaynkuu tilmaamaya. ama dadka muqiimiintaa gadaal buu noogu keeni doonaa. Safwaan ibnu casaal safar bay ku jireen. intaa ka bacdi dhowr su-aalood baa ayay rasuulku weydiiyey. ka gadaal nin u yimid ee uu u sheegahayay arrintaabuu u tilmaamayaa. qaala wuxuu yidhi kaana rasuulullah, rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam ya'murunaa midna faraa idaa kunnaa safaran, haddaan safar nahay. haddaan nahay dad safar ahoo safar markaa ku jira oo musaafiriin aan nahay, anlaa nanzica inaanan siibin khifaafana kabaheenna khifaafka ahee buudkaa 3 ayaamin 3 maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda. haddaad musaafir tahay oo 3 maalmood iyo habeenadoodu ay kuu dhammaato, khalaas waa dhammaaday masixitaankii. waa inaad intaad dib u bixiso aad dib markaa u weysaysataa, ilaa min janaabatin, janaabo mooyaane. laakiin janaaba xataa haddaysan 3 maalmood ka soo wareeganin oo maanta ay kow kuu tahoy janaabo ku asiibto, waa la bixinayaa. janaabo maahane, walaakin min gaa'itin, saxaro iyo wa bawlin, kaadi iyo wa nawmin urdo. saddexdaa waxyaabood wuxuu tilmaamayaa waxyaabaha wisqaadka jebiya inay yihiin. akhrajahu annisaa'iyun baa soo saaray, annasaa'i baa soo saariyey. tirmidi lafdi asagaa iska leh. ibnu khusaymana xadiisku uu soo bixiyey. labadooduna markaa way saxiix yeeleen. hurdada iyo bowlka iyo qaa'idka inta waxay ka mid yihiin waxyaabaha waysaqaadka jebiya. waysaqaadkay markaa jebinayaan, laakiin khufaynka loo bixin maayo. sababtu waxay tahay wax qubays waajibiya ma aha. waysaqaad keliya qofka looga baahan yahay. markuu wayse qaatana dushun buu ka masaxayaa. janaabase hadday timaada markaa waa la siibayaa iyo wixii qubays waajibiyaa. wa can cali bni abi aalibin radia allahu canhu qaal, cali wuxuu yidhi jacala annabiyu, nebigu wuxuu u yeelay sala allahu calayh wasalam 3 ayaamin 3 maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda lilmusaafiri, musaafirkaa loo sameeyey. musaafirkaa loo yeelay. wa yowman maalin iyo walaylatan habeenna lilmuqiimi, ninka muqiimkaee xaafaddiisa iyo magaaladiisa jooga. yacnii fi lmasxi cala alkhufayn baa loola jeedaa. masixitaanka khufaynka rasuulku wuxuu u yeelay inuu masixi karo qofka musaafirkaa 3 maalmood iyo habeenadooda. 24 sac waa habeen iyo maalinna qofka muqiimkaa loo ogol yahay. asagu intaa kama badin karo. ama qofka musaafirkaa 3 maalmood iyo habeenadooda haddii qufaynku ay ugu jiraan, horayna uu u geliyey asagoo wayse qaboo daahir ah, intaa wixii ka dambeeya waa masaxayaa 3 maalmood iyo habeenadooda. amaa qofka muqiimka ah, guri joogga ah, magaaladiisa jooga, asagana habeen iyo maalin baa loo sameeyey oo loo yeelay. waa fi lmasxi cala alkhufayn. wa can cali bni abi aalibin radia allahu canhu qaala jacala annabiyu, nebigu wuxuu u yeelay sala allahu calayh wasalam 3 ayaamin 3 maalmood iyo walayaaliyahunna habeenadooda lilmusaafiri, qofka musaafirkaee socotada ah. wa yowman iyo walaylatanna lilmuqiimi, muqiimkaa loo sameeyey, yacnii fi lmasxi cala alkhufayn. akhrajahu muslim baa xadiidkaa wariyo soo saaray. wa can thawbaan radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi bacaa rasuulu ullahi, rasuulkii ilaahay ayaa diray sala allahu calayh wasalam sariyatan, koox buu diray. sariye iyo unug ayuu diray iyo koox. fa amarahum, wuxuu amray an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ibi, yacni alcamaa'imi, cimaamadooyinka dushooda. iyo watasaakhiina, yacni alkhifaaf. tasaakhiinkana waa qufafka, casaa'ibtana waa camaamadayo maryaha madaxa la saarto. rawaahu axmed wa abu daawuud wasaxaxahu alxaakimu, xaakimna wuu saxiix yeelay. xadiidku wuxuu tilmaamayaa qufaynka oo la masaxo. sida baabka aan markaa ku jirno heebna horay baan u soo marnayo, qofku haddii weliba dhul qabow uu joogo, qufaynka inta badan waa laga qaataa. cimaamadahana markaa uu ku duuban yahay, taana darar iyo dhibaato uu ka baqaya ama uusan rabinba inuu markaa qaado, wuxuu tilmaamayaa dusheeda inuu masaxo. waxaan horay u soo tilmaannay foodiiyo nebiga inuu naasiyadana masaxay, cimaamadda korkeeda labadanu isku daray.
intana waxaa la tilmaamayaa oo rasuulku uu amray dadka inay casaa'ibta waa camaamadahe dushooday markaa masaxaan, xataa ma uusan ugu darin inay foodii naasyada markaa ku daraan. taana waa la tilmaami karaa oo waa la samayn karaa, labadana waa la isku dari karaa, amaa fooda keliya markaa karaahiyo aan wanaagsanayn. rasuulku koox buu diray sala allahu calayhi wasalam, sarriya iyo ciidan ayuu markaa diray, fa amarahum wuxuu amray an yamsaxuu inay masaxaan cala alcasaa'ibi, yacni alcamaa'ima, camaa'imta inay markaa masaxaan, camaamadaha inay masaxaan dushooda. taasuu markaa rasuulku amray waa markay weyse qaadanayaan. iyo watasakhiina, yacni alkhifaaf, khufuufinkana iyo kabaha qofkana inay markaa masaxaan, waa marka intay weysadu ka jabto ay markaa doonaan inay markaa weyse qaataan. rawaahu axmed wa abu daawuud wasaxaxahu alxaakim wa can cumar mawquufan wa can anas marfuucan. cumar wuxuu ku wariyey isagoo mawquuf ahoo, mawquuf buu cumar ku yahoo waa wixii saxaabiga markaa ku eg, waa nebiga loo rafacin. marfuuc marka la yidhaahdana waa mar allaala markii nebiga loo rafaco. anasna marfuuc buu ku yahoo idaa tawada'a axadukum, axadkiin haddii uu weyse qaato oo walabisa uu xirto ee markaa uu gashto qufayhi qufaynkiisa, falyamsax ha masaxa calayhimaa korkooda, dusha uun ha ka masaxo, walyusalli fiihima hana ku tukado, walaa yakhlacahumaa yuusan bixini inshaa haddii uu doono. marka waajib ma ahani qof allaala qofkii doono waaye, laakiin nebiga sala allahu calayhi wasalam xaaladdaa hadduu qof ku sameeyo oo waxay diintu markaa qabto inshaaa, ilaa min janaabatin janaaba ma ahani. akhrajahu aلطaaruqudni wاlxaakimu wasaxaxahu, wuuna saxiix yeelay xaakim xadiidka. oo wuxuu tilmaamayaa marka qufaynka la masaxaayo waxaa shardiga qofku asagoo weyse qaba oo markaa weysaystay inuu kabii qofkaa gashto. laakiin adigoon weyse qabin haddii aad gashato markaa ma masaxaysid. waxaad masaxitaankuu ku imaanayaa marka horeegoo daahira lugahaaga inaad geliso, sida hadda aan soo marnay muqiira markuu u hoobtay inuu nebigu ka bixiyo qufaynkana wuxuu yidhi dhaaf aniga ayagoo daahir ahaan gashtay. markaan gashanaya daahir baan ahaa oo waan weyse qabay. xadiidkaasuu nebigu tilmaamaya idaa tawada'a axadukum, axadkiin haddii uu weysaysto oo walabisa khufayhi uu xirta khufaynkii, waa kobihiis labadiisii kob ee khufaynkaa, falyamsax calayhima, dushooda ha masaxo, waa markii intay weysadu ka jabto markaa uu doonay inuu weyse qaato. walyusalli hana ku tukada fiihimaa gudahooda, ayagoo kugu jiraad markaa tukanaysaa. walaa yakhlacahumaa, yuusan bixini, yuusan siibin inshaaa hadduu doono. haddaad doonto ha kuugu jiraano oo ku tuka ilaa min janaabatin, janaabo mooyaane. amaa hadday janaabo timaado hal maalin iyo lababa ha ka soo wareegtee, qofku waa bixinayaa, waa qubaysanayaa. intaa kadib ayuu haddana wuxuu samaynayaa inuu dib u xirto. wa can abi bakrata radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam annahu nebigu rakhasa wuxuu u banneeyey lilmusaafiri, qofka musaafirkaa wuxuu u ruqsiyeeyey 3 ayaamin, 3 maalmood iyo walayaaliyahunna, habeenadooda. 3 maalmood iyo habeenadooda oo ishaystaa, waa 3 maalmood oo kaamil ah, habeenadooduna ay markaa la socdaani. ninka musaafirka ah iyo qofka safarka ku jira yuu nebigu ruqso u siiyey, waa inuu kabaha ee masaxo. walilmuqiimi, qofka muqiimka ah, muqiimka waa qofkaan musaafirka ahayn, muqiimka ah ee beledkiisa ku nag ee markaa joogana, yowman iyo walaylatan, habeen maalin iyo habeen. maalin iyo habeen buu rasuulku u banneeyey. waa goormee? idaa tatahara, wa hadduu tahaaro qaato, falabisa uu xirta markaa khufayhi, qufaynkiisa. waa mar allaala markii asagoo tahaaro qaba oo weyse qaba oo weysaystay oo markaa labistay kobihiisii. an yamsaxa buu rasuulku u ruqsiyeeyey inuu masaxo calayhimaa korkooda. akhrajahu طaaruqudni baa wariyey, wasaxaxahu ibnu khusaymana xadiisku uu saxiix yeelay. asaguna wuxuu tilmaamayaa qoybabkii aan soo marnay ama arrimihii aan soo marnay qayb ka mid ah inuu rasuulka ruqso u siiyey, waa loo oggolaaday.
qasab meehe haddaad doonto waad iska bixin kartaa adoo wataa, haddaad doonto waad rabnayn kartaa oo waad dul masixi kartaa. rasuulka ruqso ahaan ayuu u siiyey bacdamaa qofkan musaafirka ah tacab iyo shiddo iyo dhibaato uu marayo. sida salaadaba loogu ruqsiyeeyey inuu jamciyo, ruqso loogu siiyey inuu gobol ka mida gaabiyo. xaaladahaasoo dhan waxay tilmaamayaan diinta islaamkaa samxada iyo naxariistay markaa leedahay. rasuulku ruqso ayuu u siiyo wuxuu u ruqseeyey qofka musaafirkaa 3 maalmood iyo habeenadooda, muqiimka xaafad joogga ahna maalin iyo habeen. waa bishardi idaa tadahara oo falabisa khuffayn, waa mar allaala markuu intuu weyse qaato oo isdahiriyo kadibna uu khufaynkii markaa xirto, an yamsaxa inuu masaxo calayhimaa korkooda. wa can ubay bni cimaarat radia allaahu canh annahu qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah, rasuulkii ilaahayow, yaa rasuula allahi, rasuulkii allow, amasaxu cala alkhufayn, ma masaxaygaa buu yidhi, amsaxu dheh, ma masaxa cala alkhufayni, khufaynka dushooda? qaala nacam, haa buu dhahay nebiga. qaala yowman, maalina? qaala nacam, haa buu dhahay nebiga. qaala wa yowmayn, 2 maalinna? qaala nacam buu dhahay nebiga, haa. qaala wa 3, 3na? qaala nacam, wamaa shi'ti intaad doonto. akhrajahu abu daawuud baa soo saaray wa qaala laysa biqawiy, qawi ma ahan buu yihi. xadiisku qawi ma ahan hadduu yihi daciif waayo, waayo wuxuu in badan ka hor imaanayaa wamaa shi'tada maba jirtay 3 maalmood ayaa qofka musaafirkana loo oggolaaday. qofka muqiimka ah saan soo tilmaanayna oo nebigu caddeeyey yoom waley. saa darteed ninkan markuu rasuulka u yimid ubay bni cimaara la dhaho, wuxuu rasuulku su'aalay baa la yidhi su'aal oo wuxuu yidhi amsaxu, ma masaxayaa rasuulkii allah oo ma masixi karaa cala alkhufayn, khufaynka dushooda? macnaha masax guud buu weydiiyey. qaala nacam buu yidhi nebiga, haa. qaala yowman, ma maalin baa? qaala nacam. qaala wa yowmayn, 2 maalinna? qaala nacam. qaala wa 3, 3na? qaala nacam. inta axaadiista saxiixan ku soo marnay, wamaa shi'ta iyo waxaad doonto. abu daawuud wuxuu yidhi xadiisku ma ahan mid xoog leh, xadiisku daciif waayo. baabu nawaaqid alwuduu, wayse qaadka waxyaabaha buriya, waxyaabaha